الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل وضح وخيول ونداء وهج وجبال شماء بالدين شموخ وعباد. انت وارك يا ايمانك انه يا اغلى جوهر عنده دايما كوغو قال سنه اكتسيا له ويا وحا النار كبدباديه جنات كهشو وح بن ادم هلا وحا ugu weyn janno iyo rabbi aragtidii subhanahu wa ta'ala iimaan baa lagu helaa wax bin aadam uu ka nabad galo balaayo laga baxsada naar baa ugu weyn iimaan baa laga nabad galaa idan wax ka qaalisan ma jiro inteeba u feejig wixii noloshiisa ugu qaalisanaa inuu ilaaliyo oo uska galiya boorka ka ilaaliyo saxaabadii nabi maxamed saasay u ilaalinayeen معاذ بن جبل با waxa laga soo arooriya bal ibn hajar rahmatullahi alayhi fi fathi wuxuu leeyahay sanadku waa sahih waxa laga keenaa inuu oran jiray ijlis bina nu'min saa'a ardadiisii dadkii la socday buu wuxuu leeyahay ina fariisiya aan saacad ilaahi rumaynay miyana ilaahi rumaysnay subhanahu wa ta'ala ma wuxuu rabaa inuu iimaankan koriyo oo kobciyo beero oo waraabiyo ina fariisiya buu leeyahay iimaankeena sugni war iimaanku wuu yaraadaa qaara haddii la kobcin waayo xadu intan leekaado ama se kaba sii yaraado ama se uu mudxo oo muldhado oo shiiqo oo madho oo idlaado wax la'aan soo baxo waxaad ka garan kartaa xadiisu shafaaca kuwa naarta gale marka dambe laga soo fagayo nabigu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam in la yiraahdo ka soo saara ka iimaanku ay kaga hadhay xabatu shaciir riwaayadka qaarkood xabba min khardal riwaayadka qaarkood ay ka sii dambaysiinayaan darra min iimaan yani wala kala iimaan weeye kuwii iimaanka weyna iyagu siraadkaba hilaacay ku mareen naar iyo waxaan la isma aragay siraadkaba biduun xisaab biligla lagu maray kuwii iimaankoodu meelo dhexe marayay nin faras fuushan oo kale ku mareen kuwii aanaadka u xooganayni iyagoo min makhduushin wa makduusina bay mareen kalaaliibta ka laalaada iyadoo ay dhaawacday oo dacladu dhiig ku daayaan bay ka dhaafaan qaar iyagoo beerka ku gurguuranayay maraan qaarna jahannamay ku daataan kuwa jahannamo ku daata haddii iimaanku wuxuun ka sii harsanaaba kolba in la soo fagaa kuwii salaadaha iyo tukan jiray baa laga soo horfagaa oo malaa'igta naarta dadka fakaysa waxay yidhahdaan ilaahu maxaan ku garanaynaa dadkani waa dhuxuloobayne eegta baa la yidhahdaa mawaadicu sujuudka meeshii sujuuddaas naartu ma cunteen xadiidu shafaaca wuxuu tilmaamaya dadka iimaankoodu siduu kale yahay idan waxaynu u baahannahay inaynu iimaankeenna u feejignaano halka uu marayo ilaahay hadduu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi warasuulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل هدي لقول هي آياتك كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر يا عمر يا عثمان يا علي هدي قوة الله وكلها الله يا آمنوا بالله إنه انتين وبهنا إن لا ينقلها الله مركز هدي قولة داس لقول kuwiina iimaanka laga helay oo iimaankiina ku sugmaa mase kororsada inagu imisaynu u baahannahay in laynagu yidhaha yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billah balse haddii nebi maxamed ilaahay ku leeyay yaa ayuha nabiyu ittaqi illah isagoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay yaa ayuha nabiyu ittaqi illah nebi allah waa alla ka baqa baa la yidhaha alla ka cabso subxaanahu wa tacaala macnuu waxa weeyaan iimaanka iyo taqwada iyo alla ka cabsigu waa darajaad ayay culimmadu leeyihiin la koro oo qofku uu kor ku noqdo waase dhici kartaa inuu daadego oo qofku meel hoose uu noqdo sidaa awgeed bay ahlu sunnu waxay tilmaamaan iimaanku inuu yahay qowl iyo ictiqaad iyo camal inuu yahay weedh qalbiga degta oo guntanta inuu yahay wax carabka lagaga dhawaaqo
inuu yahay acmaal jidhka ka soo baxda oo uu qofku sameeyo. qur'aan badan oo rabbi uu soo dejiyey baa wuxuu inoo tilmaamayaa inuu iimaanku koro. huwa aladii anzala sakiinata fii quluubi almu'miniin liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sakiinada iyo xasiloonida quluubta kuwa mu'miniinta ku soo dejiyey liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim. bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku yaallay iyo kayrkiiba tirmidiya soo arooriyeen wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu yahay bidca wa situun aw bidca wa sabcuuna shucba, 70 iyo dhowr ama 60 iyo dhowr gobol ama gobol inuu yahay qaybood ay u korayso laa ilaaha ila allah, ay ugu hoosayso imaadat aladaa can اطariiq walxayaau shucbatun min aliimaan. xishood rabbi laga xishoodo iyo in la caasiyaana uu ka mid yahay shucba min shucab aliimaan. saxaabadii noolayd xilli waxyigu samadu uu ka soo degayo, xilli nebi maxamed wax tarbiyaynayo, xilli 13 sannadood caqiide loo sharxayay. 13 sannadood bay nusuusulcaqiida maka ku soo degayeen. waxaasoo tarbiyaa soo qaatay. dhowr iyo 10 sannadood gacanta nebi maxamed lagu barbaariyey calayhi salaatu wasalaam. haddii ilaahay leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi la leeyahy, dadkan aan nebi maxamedba barbaarin see maxaa la odhanayaa marka? dadka aan joogina jiilkii nebi maxamed la noolaa ahayn, dadka nool zamanu shahwaat washubuhaat, cahdi almughriyaat, dadka nool waqti shubhadu ay tiro badan tahay. shubhadu ashubah shubah waa waxyaabaha kan dadka diintooda lagaga khalkhalgeliyo. sidaan in badan ku celceliyay casriga kan gaalnimadu waa takhasusaat cilmiya. gaalnimada jaamacadaha looga baxaa brofesaro gaalnimo ku takhasusay. qof kasta waa loo dhigaaba inta badan iskuul dhigata iyo jaamacad iyo meel soo daraasaysa waa silibas la dhigtay ka mid. waa casri xoog loo faafiya gaalnimo. iclaam baa faafiya, buug baa faafiya, kitaab baa faafiya, shaneemaa faafisa, media faafiya, tv baa faafiya. waxaa kaloo casrigan la faafiya mughriyaadki iyo shahawaati nafsi, waxyaabahay naftu jeceshay. ilaahay subxaana wa tacaala nafta bini aadamka wuxuu ku abuuray dawaafic loogu talagalay nolosha inuu ka qayb qaato. waxaa ka mid a dawaaficda jinsiga ee isdhalka ku saabsan ee bini aadamkuba aanu jirin haddaanu isdhalayno tarmaynin. laakiin shubahaad oo dhan baa la faafiyey, xaaraan oo dhan baa la fudaydiyey. hadday tahay ribo, hadday tahay zino, hadday tahay khamri, hadday tahay mushkilad, waxa xumo lagu sheego oo dhan casri alfadaa'iyaat baa nooshi. casri qolka yaree gurigaaga gaalka jooga dunida dabadeedu uu wacdinayo. waa wacdi joogtaa, wacdi joogta oo qolka hurdadaada iyo gurigaaga uu wacdinayo. gaal ka soo hadlaya xaggee aakhiru dunya oo nadariyaadkiisa cilmiga iyo aragtiyiisa iyo wixiisa sheegaya. idan dadka nool casriga kan intuu u baahan yahay inuu iimaankiisa koriyo oo uu ku koriyo bilcilm. imaamu nawowi raxmatullaahi calayh saxiixu muslimka markuu sharxaya waxa uu tilmaamaya uu leeyahy iimaanku buu leeyay isagoo khilaafaya ahlulfalsafa yidhahdaan maahiyat liimaan ma korto, ayuu wuxuu leeyahy wuu koraa. xata almaahiya buu tilmaamaya. aslu liimaan baa kora oo bilyaqiini walcilmi waladilla ku kora. madaa cilmika billaah ayuu iimaankaagu koraya. intaad alle aqoon u leedahay wuxuu iimaankaagu korayaa intaad aakhira aqoon u leedahay. wuxuu iimaankaagu korayaa intaad rabbi ku xidhantay. wuxuu iimaankaagu korayaa intaad alle ka cabsato. wuxuu iimaankaagu korayaa inta aad qafilato albaabada la yska waalo. albaabadan badan ee ballaqane bini aadamku uu leeyahay ee shubahaadka iyo shahwaadku ay ka soo galaan inta aad iska xidho ayuu iimaankaagu koraya. sidaa ogeed buu isagoo nebigu raba calayhi salaatu wasalaam inuu inoo tilmaamo noloshu inaanay meel jooginee wax badan oo qofka soo maraya inay jirto, ayuu wuxuu ku tilmaamayaa iimaanka iyo qalbiga qofka bini aadamka oo kale inuu la mid yahay dayaxa iftiimaya.
marar baad daruuri soo baxdaayo maxay ku samaysaa ifkiisaba way qaraysaa way hadhaysaa laakiin daruurtu joogta maaha dee dayaxuu iska joogaaye cabbaar markuy madoobaysay haddana ka dhaqaaqda wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku yaalla caliy bna abi aalib uu soo saaray waxa uu soo aroorinaya wuxuu leeyahy maa min alquluubi qalbun ila walahu saxaaba ka saxaabati alqamar ma jiro qalbiga bini aadamka ka mida ilaa iyo daruur buu leeyahy buu nabigu leeyahy daruuraha dayaxoo kale ka mida yacni nolosha fitankeeda iyo imtixaanaadkeeda waxay ku soo maraysaa wakhtiyo uu ku yaro dahaadhmo laakiin waxaad u baahan tahay meelihii lagu nadiifin jiray inaad ku cararto laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waana iimaanku quluubtiinna wuxuu ugu gaboobaa sida maradu dushiinna ugu gabowdo ee rabbi waxaa weydiisataa inuu iimaanka qalbigiinna ku cusboonaysiiyo intee dareensan in iimaanku ka gaboobayo intee dareensan inuu maydhis u baahan yaho isleeya war qalbiga dib u maydh waa daxalaystay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa alla qur-aan ku tilmaamaya dadka qalbiyadooda waxaa dhababay waxaa daxaleeyey waxay kasbanayeen sidaa awgeed bay saxaabadu waxay aad uga faygignaayeen iimaankooda innaba inuu dhaawac gaadho aad bay u ilaalin jireen sida maanta dadka joogaa lacagta ay u ilaaliyaan si ka xoog badan bay u ilaalin jireen waxaa laga yaabaa miaal aan had iyo goor dadka u tilmaamo waxaa ka mida haddii gurigaaga dhexdiisa dhala yaroo dhex taallay quraarad yar kristal yaroo cadoo miiska isaga kaa saaraa oo aad u haysatay waxaad fadhiga ku quruxsatay maalin inuu kuu yimaado waaxid geologist ah oo ku yidhaahdo bahashan yare miiska saaran gurigaagu war waa diamond uu ku yidhaahdo allah marka diamond lagu sheega madaxa ku xanuunaya awal miiskay saaray laakiin marka kan sanduuqaad ku qafishaa qolka qafil sanduuqa qafil islaamta waxaad tidhahdaa nabalmuftaaxaas intaa soo noqonayo cidana yay taabanin bangi la dhigo meel la dhigo waayo wixii baa diamond noqday awal wuxuu iska ahaa wuxuu maxay kristal quraarad yaroo cad buu ahayo meesha yaallay quraaradda cadi markaa waxoogaaga quruxda ubaad uga jeeda qiimo badan kuuma lahay laakiin hadda qiimaa loo yeelay maadaama qiimo loo yeelay waxaad ku feejig tahay sidaad u ilaalin lahayd saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waridwaan ullahi calayhim ajmaciin iimaanka wuxuu gooyo iyo macnihiisa iyo qiimihiisa yaqaaneen sida daraaddeed bay waxay ilaalinayeen iimaankaasi waxay u arkayeen inuu yahay wax la xifdiyo oo la dhowro oo waa kasta oo barya ama gabal kasta oo duma uu qofka mu'minku isweydiiyo iimaankayga xaguu u socdaa ma kor buu u socdaa mise hoos baan u socdaa